أكرم سويتيز waxaad ka helaysaa macaamitooydu sarreyso keegu wuxuu qayb weyn ka yahay farxadda munaasabadaada waxaan meesha ka marnay noocyada kala duwan cuntooyinka fudud fast food kuwaas oo haddii aad mar ramiso aad u xiisi doonteen dalba hadda oo nagala soo xiriir ebril xalshan 63 أكرم سويتيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة أدنى لرادة وحنا كنا ولاي سويدن. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. hooyo see wax ku gaareen hooyo maxaa kugu dhacay ay taaban sidee u dhacday soo kac qolkaan xageynina oo fadhiga tartiib kaan inta ka tartiib bismillah tartiib bismillah الرحمن الرحيم الله يتابعنا hooyo يتابع الله gacanta halkaana fadhiisanaya الله جماليgu waca gacanta waa jabtay الله gacantaygu ma taalo jamaaligu waca جمال hooyo way jabtay بسم الله هيا جبتها maxaa ku dhacay hay hadda idii maana جمال maxaa dhacay xamdi hooya jabtaa liisoo sheegay xaafadaada hay isbitaalka tagay iyo kan baraaja saaray ay oo soo wacaya hooyo diin ku keenaa وي احمد اي ورن حاجه كبخ احمد نقدر ما يايرو احمد ساكنت انا حاجه كسرعان ولا ليه بقى كسي iyada saftaa leeb dadka hariifeeba nafta waxaas camal weligay ma igu dhicin laakiin gabadha mustaqaanin al hay maxay i bari naftaas waalan waab la yaab si ii hirufte yaab waay walaa maya ma tagaabay soo haayaba gacantan inay jabantahay shaki kuma jiro جمال حبيبي ايه قوي هو يعربتها سينا هو يعربتها انا كوغو دفنا حنونك كاير انا كدبنا راجيا كسارايا axmed waa wiil fiican inkastoo iska dhib badan yahay dadka fiican dadka dhan way aqbalaan هاي هو إذن صلابنا أنت هذه أحمد كده ميسينيسيا محاني ما نرجعتي أنت هذه معنته ما يملها أنا موبايل سكسي بوجينا أنا كنا مستيام فرين إيش خرب مسوي عليه أيوة اقرا لي هذا إيريدان قرابتي ذاك بدن قرابتي جبدي وبديهين ميا طبعا إذن صلابنا هاي حبيبتي أحمد أروح لسارة وأنا كل ذا اوكي maxaa baa habboon culays saa'id u weyn saaran waana sababtay gurigeen u joogto culayskaas muxuu yahay markaba habboon habboon maxaa kugu dhacne habboon maxaa kugu dhacne habboon wadaxay sheegno maxaa kanan ugu oynay ama soo burburyaaya rajo walba ama maalmo yar iyo kusoo burburtay waxaa xiriir lahayn oo isjecleen eedaday wiilkeeda
ciidadii markay ogaatay kadibna waxay go'aansatay inayna kala fogeyso labadeena. waxay rabtay inay igu dartan in guurkiisa aniga aan raali ka ahayn. naftayda si u badbaadsadana meesha dhan waa kasoo tagay. markaa kasoo tagay kadibna waxaa ogaaday sababta la iigu diidaayo wiilka eedaday. maxaa waa sababta lagugu diidaayo? familka aniga 20 sano aan la soo noolaa wiilkooda waxay igu diideen maadaama reerkayga aan la aqoonin. aniga waxaan dareemaa inaan ahay qof la soo deeriyey. meelo aadana ma aqaanin. waxaan rabaa reerkayga inaan raadsado garab ay siinayba. والله waa arrin aad u adag maxaa mar ila wadaagaysa arrintan hadda si habboon aan u caawin inay gurigeena joogtadaan anna maanta waxaa kuu wacsaa hooyana u dhaadhicisid inay habboon guriga joogto wayna la joogaysaa habboon taas ka walow la-aada waanu hubaa hooyo xakiimo inay la fahmaysa arrintan habboon runtii aad baan uga xumaa dhibkuu gaaray dunidana arkaysidna qof kasta imtixaan u gaaro la nool yahay mana jiro qof zero problems insha allah noloshaadana khayr ay ku dambeynaysaa garab wax kastana anaa kula garab taagan insha allah arrinta hawreerna waa waxa u sahlan ee maanta hor yaalo anigaan kasoo dhameynaa insha allah run ahaantii waqtigaan garab u baahnaa garabkayga noqotaa ma aqaan qaabada kugu mahadcelin doono. xabiibtu waa waajib ma saaran aniga xitaa waa huwa maanta haddaa booskaa ku jiri lahaa inaan nafta ii hori lahayd aad iyo aad haddaanan garab la siin dunidan waana waqti loo baahan las garab istaagin haddii waraabaha dadka cunayso nugu soo dhowo mar walba hooyo 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 maxaa la qaylinaya soo gal gudaha ku jiraan hooyo moogtaa hooyo amra isbitaal loola cararay yah maxaa ku dhaca bismillaahi ismaana isoo wacda waxay ii sheegtay jikada inay ku taraarax kadibna gacantaa ka jabtay waa jabta ah haa ilaahow balaayo naga hay goorma jabta marka waa yahay wax yar ka horee jabtay ismaana ii soo sheegtay had seeta isbitaala jamaal ula cararay maxaa samaysaa dharka soo bedel waa baxeynaa hooy jamaalaa la hadlay wuxuu ii sheegay in la kabay waxar kadibna guriga la keenaayo hay goorma guriga la keenaa marka waa yahay waxar kadibba waa la keenayaa dhib mal waa baxeynaa arka bedelo hooyo midaan dhalayaa jikada biyo ku daadaadisay anigoo jikada wax ka doontoo soo noqonayaan sanbiriiraxda gacantaa ii hoos martay marka laakiin jikadan maxaa ka doontay jamaal hooyo jikada inay aado maahan gabdhaha u sheeg hooyaha u adeegaan caafimaadkeedana ka fikiraano hooy daawadana farmashiyaa kaaga doonaya oo kuu soo laabana may hoy warqadana lasi anagaa hore u gadanayna may daawada anaa ku filan hooy anaa ku keenaa wax yar sug maxayd gabadhaan saanu fiican waa isnaqaanaa leh xilligii oo horumareen xanuunsanaysa isbitaalka isku baranay waa gabar aada u fiican laakiin waa fiicanta gabadha walaala ilaaha kuu saqira ka war haddaa dhabar ka jibileed ama sinta alxamdulilah ilaahay iima kasan laakiin abahay aakhirkii aniga naagtaan ay jajabinayso meeqa jeeraan ku dhah jikadaas biyaha ku daadaadin hooyana quraacda kadib jikada ma gelin istara iga dambaysa anaga aamus waxaas aab waan u sheegin bisinkee walaali dabacaddan waama ku aqaanaaba markay wax hadlayso qof kale dusha ka saartaa maxaa kaa qaldan ismaani waxaas yaa lagaa maqal kiniiniga hal xaba hadda cab halka xaba kalena caawa cabaysa insha allah insha allah ayaba hooyo cirbadana cirbadda beriya kuu bilaabanaya gacanta saantee la suqaasee noqonay xanuunaysaa intaa muse meelaama kaasiga xanuunaysaa ister see taa hooyan fiican taha alxamdulilah maasha allah ii fadhiiso ister Bayo, fiicantee waa fiicanahay hooyo dadkaa ma taqaan horumaryan iyo gabadheeda soo maahan
maasha allah waa garata gabadheeda idil la dhahaa barasho wanaagsan abaayo. wanaagsan abaayo soo dhowow. caawa maxaa waaye cashadana waa badan tahay dadkana waa yaryahay. haddii la badiyana waxbaa sheegaysaa haddii la yareeyana waxbaa sheegaysaa inta lagu raaca ducada caawa wixii ka dambeeya aniga aabbo cambuulaan oo lagu talagalaa ismaan. ismahan warkaas ma maqashaa? haa hooy orod xirsi iyo soo waco waxaa tidhahdaa cashada diyaar maxaa idinku dhacay maa soo baxdiin maanta dha idinka idin sugaynaa ka waran ooyaan sugaya. miiska cashadii alaabta saaran Oh really? U sheeg miiska cashadii iyo alaabta saaran inaan casheenay. waryaa cumar maxaa la meeraysanaysaa kaali nala cashayno? aab waa soo cesheynaa arag beentiisa waryaantee ka soo cashaysa kaala soo fadhiiso allahay walaa waxaa cun haddaa ogaaleed jikin iyo shuweermo yaa ku siiyeyna waa runtiisa hooyo reer xirsiyo la casheeye istara haddii iisoo sheegta khayr bato waa cashada noo guro cashayno. quraxay ana rajo fiican kula garab taaganahay waxaan aaminsanahay inuu alla garabna siinayo insha allah. ها qofka ilaahay tala saarto xuma waay hadda kadib waxaa loo baahan yahay talaabo walba aa qaadaysid degnaanshiso iyo kafiiso. ها runtaa waay laakiin aniga yaab iska noqdo nirigtii la dhihi jiray maxay ka nugtaa maxayse ku nugtaa haddii aan rabo xataa inaan tilaabo qaado dhankeenu qaadaa. waa sax ma jiraan wax macluumaad dhammaystiran laakiin waxaan hubaa haddaa dhaqdhaqaaq sameyno waxayna nagu soo kordhayaan. ani waxaan aaminsanahay aab ducaali inuu yahay qof keliya xogta ugu badan aan ka ogaan karo. okay ka waran haddaad israacdaan uu ku geeyo goobtuu kaa soo wada yaraantaada. wiilka canaanta xoogaa feeray canaanta waxba kama dhibayso haddaan la dilayn. ilmaha qaar canaanta uga dhib badan dilka nin weyn waaye waxaan ka shaqaynaynaa wadantiisa haddii shaqada laga soo baxo maxaa bannaanka laga qabanaa? qolkuu keligiis kala jira adiga lama sheekaysanaysa anigana iga xishoona haddaba muu guurinaa guuri ma gaaran wiilka hawaalin adiga guursadaa doonta amina miyay ogolanay haddaan laba kaara noqdo? hadda animaa kaa warko inaa qabto subaxdii saa u baxda habeenkiyaa soo laabataa yaa kaa warhayo way fiicnaan lahayd haddii sas fududda inaan kula guursado. kolay aan haddaan ogaado go-aankayga meel oo ii yeela waa ogta walaal naag waa la guursan jiray saana looma waalan jiray maxaa isla waalaysaa? albaabkan kama bixisid madaxayga adigoon isin ama iyadan ba aniga waxay haddaan ku furayo gabadhayda waa siinaysa anaa korsanaayo. ifrax naagan aniga hen ma haynayso anigaa dhalay anigaana haysanaayo bes madaxaygoo keliya isi adiga aamin furiinkaagii iyo gabadha waa isku xoreeyeen ma fahamta? aniga nolosheeda waxaan ka qomameeyaa markaan gabadha kaa reebtay marmarba waxaas idhaahdaa ifraax haddii hooyadeed la joogi lahayd waxaa laga yaabaa saacadda inay noolaan lahayd. adigaa ku madax adeega laakiin wax qoran lama joojin karo jacfar booska hooyadii waa u buuxisay taas waajib waaye haddaan sidaas sameyn lahayn waxay ogaan lahayd qaladkii hooyadiis inaan jacfar ka goynayo
Mahadsantahay Aamin. culus iyo dabeelo ku socda 170 kiiloomitir saacadiiba. Madaxweynaha dalkaas Luis Abinader ayaa musiibo qaran uga dhawaaqay 3 gobol oo ku yaala. A leading consumer magazine just rated Nabisco shredded wheat ahead of all the leading oat brand cereals in nutritional value. That's how much fiber, protein, vitamins, and minerals per calorie we have, and how little sugar and fat. See that? And don't forget the ideas about nutrition around the Nabisco shredded wheat. xageed u socotaan xilligan hooyo istara qolka ku cajista marka banaanka wada ma iska joogtaan habeen socod ma fiicneen hooy caadi waaye hanoo cabsanin namari xabiibi والله Soomaali saa umalina ma ka waran kana saamaysay ka fiicantay Soomaa aad iyo aad wala marka imaada arkay oo qurxoon tahay dadka si u fiican yihiin isla markaa waxa la hadir soo guura حبي gabadhii walaasha ahayd magaceedu wuxuu ahaay haboon arrinteed madan iiga sheekeynay haddaan ii sheekeyno sheeko dheer waa taas marka la kaaga dhigayo maya haddaan isla joognaa haddaan waqti hayna haddaan iiga sheekey haboon waa walaashayga yar waa isla soo barbaarinay laakiin nasiib daro markaa weynana sii kala fogaaneynaa maxaa sababa laakiin aad kala fogaatiin wallaahi hooyaa rabtay inay ku qasabto guuraysa rabeen markaasay guriga ka carartay kadibna waxay ogaatay in anaga soo korinay sug haboon idinka waa soo korsateen walaashii rumeyda maahan سوفيري قبل مسكينة إيه إنها سكرتين درتين مع الأروسين لو قصبي أروسك جمال استعلاء جمالة أوكي لكن هو ينسس قبل قسم اسمه هنا بدونك إلهي يوقفنا القصبة وضرن هو يحيرس كل شيء ما قرأتي وأنا أذكتي حتى هذا وحما والله قبل مسكينته وحق دعاء خايف الجلسات كورة waxaad ii warantaa see wax kuu gaareen horta wallaahi anagoo jikada wax ka doontay soo laabashadaydii aan biyo ku taraaraxay kadibna gacantaa ii hoos martay waxaad yeelaysaa gabadhaada ismahaan u sheeg guriga oo dhan waa wada mutuneel markay meelaha dhaqayso si fiican ha u qalajiso haddii kale oo lagu jajabaa guriga horta waxay dhacwaa dhaceen wax soo laabanaya ma jiraan ismahaanna waaba diidaba waxay tiri aniga jikada waxaa iiga dambeysay istro biyahan iyadaa ku daadaadisa fiiri ismahaan waa ismahaan waa iga badisayo adaa dhalay warkeeda hore ha ka yeeli ama ismahaana hadalkeeda soo yeeli jira aniga goorma qaadan jira waa fiican tahay baraabaa tahay haddaadan qaadan warkeeda waxaan maanta is aragnay xildhibaankii reerka ama soo sharax rabaa haddana warmaana warka adiga iga sukorta warkaa isaga soo boodina wuxuu iga wareystay ismahaan waa inaa codaysan warraba ismahaan maxaa dhaca gabadhaada lagama wareysan kara miyaani maya laakiin ninkaasoo nin xaasla ah ma hen hadduu xaas leeyahani ragoo dhan ma oday ducaaloo kale oo iska kaaga fadhiyaa umulays ragga 2 iyo 3 iyo 4 u bannaan allahu akbar waa adiga fakfakadaaba tahay waa kuu jeedahay dhegeyso waxaad ii sheegtaa muxuu ka damacsan yahay gabadha horta wax walba ismahaanay ku xiran yihiin inay ogolaatay iyo inay diiddo
wax cadaadis la yiraahdo ma jiraan sax war fiican wuxuu u imaanayaa inuu barto la sheekaysto hadday isfahmaanna waa alxamdulilah hadday isfahmi waayaanna waa rabbi alcaalamiin annaga iyo adiga waxaan uga bannaan keliya duco maasha allah ma xumo laakiin goorma waa imaanaa gabadha kulley maalmaha soo socda waa noo imaanaa kowdhiya laakiin adiga ka hor la sii wadaag gabadhaada u sheeg in loo soo socdo salootada ha geysaso si fiican ha u soo dhaweyso si gaarinimo leh ya waay aniga u sheegaa ducaalo bacdan daawadii soo qabo maxay dhahday daawadaas ii soo qabo subarkan xagaa fadhiisanaynaay waan ogahay shaqo adaga haysaa aan wax badan sii jooga ma rabi gaariga soo gala ma caadi waay sheeko banaanka ah caawa meeshan maxaad igu yeertay hay dhihin la jimaa ila kulansiiye may waan ogahay midaas inay macquul ahayn waa bis aragnayba habboon meeshay joogto makuu sheegay may iima sheegin ma weydiisay ani asigoo isla fadhino telefoon ayaa u soo dhacay waxaa la hooyada ayaa jabtay isla markii si degdeg aan ku baxnay 2 mar ayaa wada kulanteen ilaa ay haddana waxbaar maadan ka keenin waxaan u malaynaa adigana wax iga qarinayso may subar waxa kaa qarinaya ma lahan adig ma ogaatay habboon meelay joogto haddii aan ogaan lahaa maan ku weydiin lahaa maya laakiin waxaa laga yaabaa caawo waxaad iigu wacday ii sheeg aniga subar horta aan dhankaaga waan ka gaabiyey waa run laakiin akhbaar fiican aan ku hayaa caawo akhbaarta fiican maxay tahay hooyadiis ayaa isbaranay weliba isbitaalkaa laygu keenay anigna waa dareensiiyey wiilkeeda inay wax naga dhexeeyaan oo hadda maxaad rabtaa jamaal hooyadiis wiilkaada igu darin aa dhahdo maya laakiin waxaa laga yaabaa duq hadday i jeclaato dhankaas inaa ka soo marayso mogid fiiri middaas macquul gal maaha duqd hadday ku jeclaato iyada kuma guursanayso jamaal habboon ayuu jecel yahay anigana waxaan rabaa habboon inaan kala wareego adigana jamaal ayaad jeceshahay meeshaas akhbaar iga keen halka ay ku sugan tahay habboon warkaaga waa la dhacay duqdana isgaadgaad ku hay u sheekee soo dhawee waxaa laga yaabaa jamaal markaa isguursataan sodox fiicanna inay kuu noqoto taas aniga igu haleeya subar shaqadaan ku laabanaya wixii akhbaarana teleefonkaa kaaga soo sheegaya okay arrintan ha ka seexanin ku dadaal balan waa